ma ogtahay noocyada caado wareerka dumarka iyo asbaabaha keena caado wareerku waa cillad dumar badan la soo gudboonaata waa isbedel ku dhaca habsocodka dabiiciga ah ee caadada waxaana loo qaybiyaa 4 qaybood oo kala ah 1 dhiigbax aan caadi ahayn 2 caadada oo isku soo dhawaato sida caadada oo timaada 2 goor bil gudaheed 3 caadada oo kala fogaato 4 caadada oo la waayo asbaabaha caadiga ah ee keeni kara caado wareerka waxaa kamid ah cunno xumo culayska jirka oo lumo xilliga hore ee dhalmodeyska uurka iyo naas nuujinta caadada oo gabto waqtigeedii ama soo daado waa calaamadaha ugu horeeya ee lagu tilmaamo inuu jiro uur naas nuujinta waxay daahisaa soo noqoshada caadada uurka kadib daawooyinka qaar sida kuwa uurka looga hortago walwalka dhaqaatiirtu waxay isku raacsan yihiin in walwalka uu sabab weyn u yahay caado wareerka jimicsiga badanaa haweenka jimicsiga badan caadadoodu way qaldantaa jirku waxa uu u baahan yahay tamar si ay haweenku caado u helaan haddii aad jimicsiga badsato tamar badan ayaa ka baxaysa jirka taasoo hoos u dhigaysa suurtagalnimada inaad caado hesho bishaas cudurrada keeni kara caado wareerka waxa ka mid ah caabuqa miskaha howlgabka iyo kacsanaanta qanjirka thyroidka xaaladaha uu kacsan yahay ama uu dhacsan yahay qanjirka thyroidka waxa ay keeni karaan caadada oo ka wareerto ama siyaado noqoto socodkeeda ugaxansidaha fiicda leh waa xaalad caafimaad oo loo yaqaano polycystic ovarian syndrome waa xaalad ku dhacda haweenka taasoo keenta dhowr dhibaato oo ay ka mid tahay caado wareer waxay sababtaa in caadada dumarka la waayo inay soo daahdo iyo in muddo ah inay iska socoto waxay kaloo sababtaa qofka oo aad u cayila madhaleysnimo timaha oo aad u baxa maxaan sameeyaa si aan ugu hortago caado wareerka si joogto ah u sameey baaritaan xagga miskaha ah sababtoo ah waxay sahli kartaa in si dhaqso ah loo ogaado haddii ay jirto xaalad khatar ku ah xubintaada taranka la tasho dhakhtar haddii caadada aysan imaan in ka badan 9 maalmood adigoon lahayn nuur caadada haddii ay iska daba marto iyadoo awalba joogto ahayd haddii dhiigga uu socdo in ka badan 7 maalmood haddii dhiigga uu dareero si ka culus sida caadiga ku ahayd ama haddii aad isticmaashid hal tabooni saacadii ama 2 haddii labadii caado ay u dhaxayso 11 maalmood ama wax ka badan 35 maalmood haddii dhiig uu ka yimaado iyadoo xilliga caadada ahayn haddii aad dareentid xanuun daran xilliga caadada haddii aad dareentid qandho ama xanuun saa'id markasta oo aad isticmaashid tabooni